السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahey ka qaaliya meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waa walaashiin Mulka Xasan Maxamed oo idin leh caafimaad iyo barwaaqo ku noolaada inta xanuunsan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiyo inta caafimaad qabtan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u ziyaadiyo lihishii ilmahaaga una noqo saaxiibka saxda ah si uu ku dareemo oo dunida waxa saaranna uu kaaga jeclaado hooyada dunida ugu qaalisanna uu kugu waco waan ogahay hooyo macaan inaad dhib badan nagu soo korisay aadna aad noola soo dhibaatootay aadna aad noola soo daalaa dhacday xagga markay dadka kale ay hurdaan in maalinna aanana soo taagnaa jirtay Ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatul firdaws al-a'la ha ku geeyo abaalkaagana waxa aan ku gudi karnaa adduunyada maba dul saarno laakiin adduunyadan way isbedeshay hooyo macaan maanta dhibaatooyinka adduunyada ka jira ayaa waxyaabo badan ayaa ku soo kordhay dhalinta maanta taaganna waxaad ku heshiin kartaan adiga iyo ayaga ama aad ku noqon kartaan waalid iyo wiilkiisa in aad saaxiibo oo kaliya noqotaan maalmihii hore waxaa la dhihi jiray cunuga wadanka gaalada lagu hayo waa cunug muslimna aan ahayn gaalna aan ahayn balse maanta waxay noogu imaatay sheekadaas wadankeenii dhexdiisa oo waalidka ilmihiisa uusan canaanin karin maxaana loo baahan yahay inay waalidiinta foolajignaadaan had iyo jeerna ay ilmahooda ka dhigtaan dad saaxiibo ah u sheekay gabadhaada si ay kugu xog waranto mararka qaarna banaanka la aad si aad u noqotaan laba qof oo saaxiibo ah sirteeda ayna kugu sheegato wixii aad soo martay oo dunida korkeeda aad ku soo martay dhalinyaronimadaada ugu sheekay si ay ayadana hadhow sirteeda kugu sheegato kadib waxaad noqon kartaan gabadhaada ama wiilkaaga laba qof oo saaxiibo ah diinteena islaamka ee aadka u quruxda badanna waa diin naseexa ah maalin ayaa waxaa dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waqtigii uu joogay masaajidka in uu nin soo galay kadibna uu ku kaadiyay kadib ay ku arkeen asxaabta asagoo kaadinaya ninkii nabiga ayaa loo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dushiisa nabadgelyo naxariis ha ahaatee kadib nabigii ayaa wuxuu ku dhahay ka aamusa ha dhameysta xaajadiisa waxaa halkaas kaaga cad ama aad tusaale kaga dhigan kartaa in ay tahay diinta raxmad iyo naxariis hooyo waxa adduunyada ku saabsan markii laga haleeyo ha ku caroonin oo ha u bahdilin ilmahaaga yarka ah ilmahaagana ha u bahdilin wax adduunyada dhexdeeda yaalo oo berito aa heli kartid waxaa lagaaga baahan yahay in aad u carootid markii uu salaada dukan waaya markii ay xijaabka xiran weyso markii dhaqanka suubanaa ee wanaagsanaa diinta islaamka ay meel ugu dhacaan ilmahaaga carada midaas ayaa mudan adduunyada waxa yaalana waa wax berito la helayo ha ku canaananin hana uga caroonin midda kale aad sameyn kartid ayaa waxay tahay markay wax kaa haleeyaan waxaan dhibaatada aan usoo maray iyo dhibkaan usoo maray haddaan kuu sheego igamaada haleyseen ama imaada sameyseen inaad dhahdid ilmahaaga si raxmad leh aadna kula hadashid waqtigii ilmahaaga ay dhibaateysan yihiin aad dareensiisid hooyadood macaan oo marnaba hooyo kale aanan jirin oo hooyadood ma ogiye ay dareemaan inaad tahay hooyada dunida ugu qaalisan ma ogtahay dadka aakhilka ah ama aqligooda uu wanaagsan yahay inay ilmaha ka dhigtaan kuwa saaxiibo ah naxariis iyo raxmadna ay u muujin jireen waan ogahay hooyo inaad dhibaateysan tahay dhibaato badanna aad soo martay dhibaato badanna ilaa iyo hadda aad ku jirtid waan ogahay in adigoo xaamilo ah aad u soo shaqeyn jirtay kuwa dhulka jooga oo Ilaahay ku siiyay in aad u noqotid qof caawiyo ee wax siiyo waan ogahay adigoo umul ah in aad u istaagi jirtay si aad noo soo koriso ee mar walbana aa waqti noo siiso waan ogahay in aad ahayd hooyo iyo aabo laakiin haddana waxaa la rabaa inaad hooyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baridid inuu samir jamiil ah ku siiyo samir aad u weyn iyo dulqaad badan uu ku siiyo wax dhacayana qof u dulqaata inaad noqotid adduunyada maanta way isbedeshay oo waxay mareysaa heerkeedii gabagabada ahaa
oo waxa haray ayaaba maanta iska yar. Waad ogtahay in waqtiyadii aakhir zamanka la taagan yahay, maantana waxa kaliya oo ay ku badbaadi karaan ubadka ayaa waxay tahay in aad raxmadaada iyo naxariistaada aad tustid oo mar walba aad u dhawaatid markuu qaangaaro cunugaaga aadna dareentid waxyaabaha uu u baahan yahay iyo xagga dhibaatada ay ka haysato iyo waxyaabaha cilada ku keeni kara si aad u noqotid hooyo barbaarisay ubad wanaagsan. Waan ognahay in ay tahay mid adag, laakiin waa in aad midda adag aad wajahdaa hooyo macaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala caza wajalla waxaan kaaga baryayaa hooyo meel kastoo adduunka aad ka joogtid inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu naxariisto jannatul firdaws al aclaa uu kugu abaalmariyo abaalkaagana ma gudan waxa dunida saarane. Hooyo macaan, adduunyadii way isbedeshay oo maanta waxa yaala ayaa waxay tahay moobeela gacanta lagu isticmaala iyo telefishinno laga soo deeya musalsalaad lagu qurxinayo jacayl been ah iyo balaayo aan waxba ka jirin. Midaas adigoo la socdana in aad canaanatid cunugaaga oo qaangaar ah weliba si ula kac ah ama aad u dhibaatayso, waxaas ayaa waxay ka dhigan tahay in aad ka warqabin adduunka wixii ka jiro. Way jirtaa mar ciyaalka inta la garaaco dhangadaha lagula dhaco, midka kaleeto deriskana uu kuu soo canaanto, walaalkaagana uu garab kugu siiyo oo ilmahaagii dib kugu soo noqdo. Balse maanta cunugii aad canaanatid wuxuu ka baxayaa wadadaas asagoo wiil iyo gabarna aan u kala lahayn. Adduunkii aad buu u xumaaday, gabdhihii waxaa loo furay kilaabyo oo maanta lagu tunto. Midaas mid la mid ahna wiilasha waxaa u taagan kuwa inay diintooda ka bixiyaan diyaar u ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaala caza wajalla waxaan ka baryaynaa inuusan na fidneynin aakhira iyo adduunyaba. Ilaahay ha kuu naxariisto, janno gashoy hooyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatul firdaws al aclaa boos ha kaa siiyo. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkaygii ku saabsanaa hooyo. La heshii ilmahaaga una noqo saaxiibka saxda ah si uu beri kuu ahaado mid ku dareema. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.